بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. su-aashan odhanaysa khataraha waaweyn ee kusoo wajahan ubadkeenna ama mustaqbalka dhallinyaradeenna iyo xalka ama sida looga bixi karo waa su-aalaan isleeyahay mala 20 sannadood ee u dambeeyey haddaanay ka badnayn waa laga hadlayay. waanay muuqanaysay dhibaatooyinkaasi hal la hadlee welina solution ama xal lama keenin. iminka u malayn maayo inaynu isweydiinayno dhibaatooyinka iyo khatarta kusoo wajahan ubadkeenna, waayo waynu ku jiraa. maaha khatar soo wajahan, waa khatar aynu la noollay markaynu nimi caruurteenu yaryarayd aynan weli mashkiladda taabanin baynu odhan jirnay khataraha soo wajahan. laakiin hadda xaqiiqada markaynu eegno suuqa mukhadaraadka aada baynuugu jiraa, xabsiyada aada baynuugu jiraa, musixaadka caqliga meelahan dadka dhimarka aada baynuugu jiraa. intaasi waa inta marar badan aynu moodno inaan gacanta lagu haynin. mararka qaarkoodna waxaan isleeyahay in aynu moodayno inaynu waxtarnaayana kasii fog. inaha jaamacaadka inooga baxay ee wadanadan wax ku bartay qaybo ka mid iyagana iyagiyo diini way kala tageen, waayo systemka wadanada tan ka jira inagoo qura maaha, waa trendka Yurub u socoto dhalinyaradeedu. ama systemka waxbarasho ha ahaado ama dadka dhigaya ha ahaadaan, trendka Yurub ay u socotaa waxa weeyaan da-yarta dhowr iyo 30 jir ka yari boqolkiiba 70 bay tilmaamayaan inaanay ilaah rumaysnayn. aduu qiyaas umad la leeyahay over 70 ayaan waxba rumaysnayn da-dooda yari. marka inagu waxaynu nimi dhul dhisan oo dowladi ka jirto, oo system leh, oo nidaam waxbarasho leh, oo falsafo nololeed leh, oo qaanuun leh, oo iclaam leh, oo shaqaynaya. waxaanaynu nimi inagoo kala daadsan oo kala firirsan oo aan wada soconin, waan mustaqbalkana aragti ka lahayn. qof waliba meeluu dabada dhigo iyo meeluu nabad ka helo, hadday ka badatana wax la cuno iyo xoogsi uu ka helo ayuu raadcaynayay. inta badanna bini aadamku mushkiladda uu yaqaanaa buu xalka u raadiyaa. mushkiladda uu yaqaano ayuu xal u raadiyaa. mashaakilkeenu halkan ugu nimi maaha mashaakil xaggeennii ka jiray. xaggeennii mashaakil nooc kaleaba ka jiray. xaggeennii cid ilaahay diidani ma joogin, laakiin cid yaro faasiqowda waa joogtay. ilaahay lama dafiri jiray, laakiin qof dadka dilaa waa joogay. xaggeennii qof been sheegaa waa joogay. yacni dunuubta xaggaa taalla iyo ta xaggan taalla waa kala nooc. mashaakilkaad markaad xaggaa joogtay ka fakaraysa iyo kaad halkan ka fakaraysa waa kala nooc. inteena ugu badane waxaynu xal u raadinaynay nabad. cabsi badan baa taallay, nabad iyo xoogsi, shaqalaan labadaa inaynu ka baxno. laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkii ama dad badanay labadaasi uun inay u manage gareeyeen oo xal u heleen, laakiin beledii halkan taallay kumaynan talagelinba. markaynu soo soconayna wax iskamaynan weydiinin, markayna qabsatayna waxba kamaynan odhanin. sidaa awgeed waxaynu ka luminay identity-gii, huwiyadii waa lunta. huwiyada ama identity-ga dadku uu leeyahay waa waxa uu dadka kale kaga soocan yahay. waxa ugu weyn laba shay waa af iyo diin. waa labada shay ugu weyn ee bini aadamku ka dhigto maxay
identity uu ka dhigto labadiiba ama waaba sii gabaabsi ama waa sii lumayaan oo afkeennii uu ka sii baxayaa meesha innaga iyo ubadkeennii si fiican isuma afgaranno luqaday ku hadlaan iyo luqadaynu ku hadallaa isku mid maaha identitygii luqannimo ee soomaaliyeed way lumiyeen waxaa kaloo sii lumaysa identitygii diineed muxuu u lumayaa adigu laba wax baad haysato kuu ilaaliyay identitygaaga diimeed koow waxaad timi adigoo mumayisa adigoo caqligaaga uu dhammaystiran yahay adigoo waxna xuma u yaqaana waxna sama u yaqaana adigoo waxa saxa iyo waxa qaldan kala yaqaana adoo valueska islaamku uu leeyahay rumaysan mararka qaarkood waa laga yaabaa shahwaatu nafsiga inaad ku dhacaysay مثلا qofka zinaysta wuxuu zinaysanaya isagoo arkay inuu xuma samaynayo laakiin uu arkaynin wax fiican inay tahay wuxuu samaynayo dan value-gii ahaa inay zinadu xunta waad rumaysanayd walow kuba dhacba value-gaas waad rumaysanayd aduu marka hore waxaad timaa adigoo valueskaaga iyo qiyamkaaga iyo tasawurkaaga iyo caqaa'idaada iyo waxaad rumaysantahay kuu dhan yihiin waa mar labaad adigu indimaaj lamaad samaynin gaaladee waad ka soocanta inta ugu badani shaqaad soo shaqaysaa waxaa laga yaabaa inta ugu badan 10 gaal inay wada shaqaysaan ama 10 kaana 5 shiya ka timi kow gaal ingiriisi iyo dadkan iyo fukaarta qabaan iyo waxay qabaan waxa laga yaabaa shaqada dhowr qof inaad isku aragtaa bas markaad ka soo rawaxdana ama masaajidka timaada ama maqaaxidii Soomaalida timaada xidhiidh kale idin kama dhaxeeyo marka adigu kow markii horena waad ilaashanayd markii labaadna meelaad ku gabato kalaad heshay oo Soomaalidii iyo masaajidkii iyo maqaaxidii iyo intaas socotay ilmahan isaga marka laba dhib baa wada haysta makiinadan ka warramay doono shiin soconaya aynu dhiibno ku daray oo waxbarasho leh oo culture leh oo dhaqan leh isagoo aan dhammaystirmin ayaynu nursery kaga bilownay ama school kaga bilownay dabeetana iyaga tababaray waa mar labaad adigu dadkan indimaaj kumaad samayn lamaan noolaan isagu la nooliyay waa la asxaab waa la kalaas waa la nooliyay waa la ciyaaraa waa isku xidhan yihiin waa dadkan wuu la nooliyay adigu se lama noolid really isagu waa nin ama waa gabadh ku dhex jirta ummadatan adigu se sinaba waxuma wadaagtaan saacadka shaqada kala aamusan tihiin aydan wax badan bay isweydiinin ayaa wada joogtaan inta kale isma aragtaan haddaba mashaakilkaas sawirkiisu waxba uma baahna baraaco badan iyo inaan ixsaa'iyaad akhriyo inkastoo laga yaabo dhan inay awareness ka samaynayso laakiin dhanka kale waxaan ka baqayaaba inay idin jabidso waa istiraadaan tan cidina badbaadi mayse ilaahay bay leeyihiin inta guriga sii fadhiisataan saa daraaddeed ixsaa'iyaadka badan waxba akhrimayno waayo inta awareness keenayaan inta niijabaysaan baa ka badan laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaamno war hantida quraynu haysanna waa dad bil aadan baa ugu hanti fiican waxay yidhahdaan qoraacana oo braziliana Paulo Coelho bay yidhahdaan Paulo Coelho waa nimanka buugta ugu badan ee dunida la iibsada leh almost waxaan filayaa 150 million copies ka badan inay buugiskiisu gaadhayaan 150 million wax ka badan waa the second man bay yidhahdaan dunida ba saa waxu publish gareeya waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabkee wax tiriya heesaha iyo riwaayadaha iyo waxa sameeya markii dambana noqday qoraa novelladan iyo waxa la qoriyo waxa kan sameeya imikana United Nation ka abu malaa u yahay rajul salaamka dunida qisaskiisa waxa kamid ah qisa yar oo kooban shaka yar oo kooban buu qoray shakada kooban uu qoray wuxuu yiri oday baa jariidada akhrisanayay buu yiri dabeetana inaan yaro u dhalay ayaa mashquuliyay markuu sidaada rugba ku yarba su'aal weydiiyo mashquuliyo kan yar iska mashquuli buu isnaysiin marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashimaabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyay
markaasuu intuu u dhiibay buu yidhi halkaa fadhiiso dunidii dib isugu rakib maabkii dunida samee wuxuu isla haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo qisada waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu kii yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey odaygu su-aal buu weydiiyey war ma hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi markaasuu yidhi may hooyo jugraafiga ma dhigto dasaad u samaysay buu yidhi waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawira xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii unbaa isku hagaajiyey buu yidhi gacanta iyo lugta iyo adinka iyo isugee dee dunidina way isku hagaagtay markaan qofki isku hagaajiyey ha dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmad ah waasaa maahmaahaan soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaasaa waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye that's the real world noloshu waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo dunidooba way duntaa qofka bini aadamka caqiidadiisa mabaadi'diisa valueskiisa xorriyadiisa cadaaladii waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan markay dumaanna wuu dumaa walidaalika baa iminka aqoon-yahanada waaweyn ee reer galbeedku aada u qaylinaya ay leeyihin xadaaradeenni way dumaysaa maaha cid ka xoog badana inay timi waxay leeyihin trendkaynu hayno wajahadaynu u jeedno ayaa ah meelay wax ku dumayaan waddanna waaweyn oo dunida ka midaba waxay tilmaamaan in wax kale ma haysanay bini aadam baanu haysanaa markaanu bini aadamka maal gashanay ayaanu nolosha adduunyo dhan bedelay yani waddankan yar ay yidhahdaan jabaan wuxuu leeyahy qofka bini aadamkaanu maal gashanay dabeetana noloshaanu bedelay sidaa awgeed culammada ka waranta sociology bulsho kuwa ka warrama psychology kuwa ka warrama dhaqaale iqtisaad economics kuwa ka warrama siyaasa kuwa ka warrama tarbiya iyo educational policy waxoo dhamme waxay yidhaahdaan one thing bay ku salaysantay bay yidhahdeen philosophy qofka bini aadamka maxaa u cuntamaa maxaa u fiican school of thoughtska kala gedisani waxay sifaynayaan qofka bini aadamka wixii ay u arkayeen iyagu inuu u fiican yahay dabeetana politicalka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ijtimaaca iyo bulshada iyo waxoo dhan waxay ku salaysan tahay qofkan bini aadamka maxaa u fiican see loo horumariyaa saddex aragtiyoodoo kooban bay dunidoo dhammi rumaysantay markaa qola u aragta qofka bini aadamka inuu shaydaan yahay imtixaan inuu yahay asalkiisu inuu shar yahay markaa systemka iyo dhaqaalaha iyo waxoo dhammi inay ku salaysnaadaan qofkan in la xakameeyo qofkan in la rifo qofkan in la controlo how much you do that ayaad nolosha horumaraysa bay qabaan waa maalan even philosophyga christianity baa ka mid ah oo christianitygu wuxuu rumaysan yahay in lagu dhashay khati'a qof walba eedii nebi maxamed nebi aadam inay dhinac ka saaran tahay oo dadkao dhammi dembiilayaal yihiin ay u baahan yihiin salvation iyo wixii rifi lahaa iyo qurunka ka rogi lahaa qayb kaloo ka mid waxay rumaysan yihiin insaanku inuu khayr yahay wanaag inuu yahay wax yararoo dulduula ka dhaca laakiin waa wanaag waa filosofiyadan maanta Jack Rousseau iyo nimankaasoo dhammi political issueskooda waxay ku saleeyeen asalka insaanku inuu yahay mid khayra qola saddexaad oo materialistka u badani waxay rumaysan yihiin insaanku inuu yahay safxa baydaa waa beige madhan bay leeyihin culture-ka form gareeya waxba kuma jiraan isaga islaamku wuxuu rumaysan yahay qofka bini aadamkii xagga khayrka inuu badan yahay laakiin nawaasic shar oo shahwaat nafsiga waxa kan iyo nawaasic alkhayr bayna ku jiraan ina hadaynahu najdayn inuu yahay labada jid bay inuu qaadi karo laakiin asalku inuu yahay fitra saliima walaqad khalaqna al-insana في أحسن التقويم بإلهي بني آدم كو حنو أبو الري أحسن التقويم يعني وحي لين قفك بني آدم كيف فطرة دي سهدين لي سود أيو فطرة أبو ركيسة يعني واحد شرب إلينا قومها in philosophy واحد أكسية مثل اللي هذا وحيابا أمبروف سكو باهنين
qofka bini aadamka wax naturally uu rumaysay maalan haddaan qalinkaa qaado uma baahna daliil inaan caagada biyaa qaadi karo bimujarad inaan qalinkaa qaaday baan waxaan garanayaa maxay inaan bimujarad inaan caagadaa qaaday biyaa baan waxaan ku garan karaa maxay inaan qalinkaana qaadi karo ila kii weynaa baan sidaa kaya uma baahna bay yidhahdaan daliil science-ka iyo philosophy-ga iyo waxaan oo dhammi wuxuu ku salaysan yahay waxa ay axioms-ka yidhaahdaan si kale haddaanu tilmaamo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa abuurkeennii in ballan laynaga qaaday waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim alastu birabbikum qaaluu bala shahidna rabbigiin ma ahay inuu rabbi weydiiyey ama se science-ka dunida calaamadaha ka muuqda inay sheegayaan inuu ilaahay rabbigood yahay si awgeed baa ilahay wuxuu ku tilmaamaya faaqim wajhaka liddiini alxaniif faaqim wajhaka liddiini xaniifa fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah diinta quman ee xaniifka ah ee shirkiga ka dheer ee waafaqsan fitrada qofka bini aadamka ah ku qumi wejigaaga baa la tilmaamaya haddaba waxaan leenahay insaanku wuxuu u lumaa bifitratihi ma xume nawaasicda khaarijiga waxaan environmentka dabadda ee waxa kaga imanaya ayaa inta badan lumiya walidalik buu nebigu wuxuu leeyahy ilaahay baa wuxuu yidhi innii khalaqtu cibaadii xunafaa waxaan abuuray addoommahaygu iyagoo quman dhammaantood wa innahum atathum ashayaatiinu fajtaalathum can diinihim shayaadiintaa weerartay ama shayaaiinulinsi ha noqdaan ama shayaaiinuljinni ha noqdaane dabeetana iyagaa diintoodii ka kaxeeyey waxaramat calayhim maa axlaltu lahum wa amaratum an yushrikuu bima lam unzil bihi sulطaana haddaba wadanadan aynu joogno waxaa jooga dad trained ah dad la tababaray oo loo tababaray waxaa loo dhiibay inay qofka bini aadamka ka dhaadhicin karaan dadkaasi ha noqdo wasaaradaha waxbarashada ilaa tacliim sare ha noqdo iclaanaadka iyo iclaamka iyo aflaamta iyo waxaan dadka sameeya ha noqdo adabka iyo riwaayadaha iyo waxa kan dadka qora ha noqdo waxaasoo dadii waxay u traingaraysan yihiin inay qofka bini aadamka madaxiisa gadiyi karaan walidalik in western markaynu joogno waxaa la idhahaa sinaacatu ra'yi aragtida waa la sameeyaa bay leeyihin siyaasiyiintu bulshada xaggii la doonaabaa loo jeediyaa waa la sameeyaa haddaba dunidu waxay isku waafaqsan tahay tacliintu waxbarashadu inay tahay meelaha ugu muhiimsan ee isbeddelku ka dhaco waddan walba siyaasiyiinta joogaa waxay jecel yihiin bulshadoodu inay homogeneous group noqoto mutajaanis dad dhan wada jeeda iyadoo diversity tiro badani uu ka dhex jiro kala gedisnaan badan ay jirto ayaa haddana waxaa la isku dayayaa bulshadaas inay si qura wax u wada aragto si qura u wada noolaan karto wada socon karto bulshaba bulshaday homogeneous ka tahay bay isku xidhnaanshiyaheedu ka xoogan yihi isla markaa maamulideeduna ay ka fududay markastoo dadka aragtidiisu isku dhadhow yahay in la maamulaa waa wax fudud markastoo dadka aragtidiisu aada u kala durugsan tahayna in la isku hayo la maamulaa waa wax adag haddaba waxay idhaahdaan waxbarashadu waa meesha dadka isku aragtida lagaga dhigo compulsory education bay waddanadani samaysteen dadka waddanka degan oo dhami 10 sano ama 9 sannadood oo waxbarasho waa inaad qasab ku martaa 9 sano ama 10 sano waxaa lagu barayaa bulshadan sida loola noolaado hadday afkooda tay hadday dhaqankooda tay hadday valueskooda tay hadday waxa qiimeynayaan tahay bulshadan waddan kale siday u wada noolaan lahayd baa la baraa wixii kasii dambeeya tacliimina horumarka waddanka buu ka fakaraya xayaat kariima qofku sidii uu heli lahaa walidalik ayaa isticmaalku markuu qabsaday waddanadii muslimiinta oo kale india waddan weyn oo islaamiya ahaan jirtay boqortooyin waaweyn oo islaamiyana ka jiri jiray ingiriiska u yimi ayar buu u galay
ingiriisku waddanka xoog kuma qabsanin laakiin markii hore meel yaraan shaah ka beertay siiya buu yidhi oo meel bay siiyeenoo shaah buu beertayo markii dambe wuxuu yidhi waa beertii waa layga weerweerarayaa waxoogaa hubaha lay ogolaado inaan la soo dogo beerta ku ilaashado security baan u baahnay hub baa loo ogolaaday beertiisi buu ilaashaday markii dambe boqorradii meesha joogay wixii sida Soomaalida isdilayso kale isdildilay qoloba mar bay u dustaayoo tiraahdaa waxoogaa hubano qol uu taageera sidii ugu wada ka wada qaaday waddankana uu qabsaday dabeetana system of education buu sameeyey system of education kaasa waxaa ka warramaya niman culamo raggii waagaa joogi jiraya waxaa ka mid ah nin gabyaaya oo la yidhaahda akbar ilaah al-abadi akbar ilaah al-abadi waa nin lawyer qaadi ahaan jiray markii dambena gabyaa noqday gabayadiisi waxay u badan yihiin gabayadan sukhriyada ee jees-jeeska u badan ee fukahadee dadku inta badan ay qabtaan marka gabay buu tiriyey uu kaga warramayo systemka waxbarasho meeshiga jira wuxuu leeyahay gabaygiisa markay af carabi ku tarjumaan sheekh الندوي ayaa tarjumaya wuxuu leeyahay yaa xasrata calaa fircawnin dahab maxaa murugo raacday ayuu ka warramaya fircoonkii tegey fircawn reer banu israa'iil buu ka shakiyey soo maaha dowladnimadiisu uga shakiyey deetana xukuma buu soo rogay inaanay wiil dhalin wixii ilme ee reer banu israa'iil dhalaan in la gowraco la dilo caruurnimada lagu dilo ninkani wuxuu leeyahay markaa alla maxaa ceeb raacday buu leeyahay fircoonkii reer banu israa'iil kaana calayhi an yunshi'a kulliyatan fii masr falaa yudkar bifadiicati qatli alawlaad buu leeyahay wuxuun bay ahayd buu yidhi inuu system waxbarashiyo kulliyada sameeyo oo ceebta ah caruur buu laayay uu ka baxsado yacni carruurtunbuu caqligooda bedeli lahaa buu leeyahay muu waxbarasho sameeya buu leeyahay oo carruurta caqligooda bedela intuu laynayo ceebta ahayd carruurtuu laayay ayuu ka badbaadi lahaa yacni wuxuu tilmaamayaa sida ay waxbarashadu u bedesho caqliga bini aadamka walidaalik ayaa nin filosof ahaa oo muslima maxamed iqbaal lo odhan jiray cambridge university macallinna ka ahaan jiray waxna ka bartay hal qarni ka hor 1905kii meelahaasi markii dambena munich university ka baxay waa nin filosof ah waana nin gabyaaya inta badan way yartay filosof gabyaa wuxuu ahaa ninkani nin dhanna filosof ah dhanna gabyaaya oo afkaartiisa markaa ku dhiiba gabay ahaan ayaa wuxuu ka warramay waxbarashada markaas wuxuu ku tilmaamayaa isna tacliimtu buu yidhi atacliim huwa alxaamud aladi yudiibu shakhsiya waa aysiidhka bini aadamka intay dhalaaliso alkaa'in alxay ayay dhalaalisaa buu leeyahy uma yukawinuha kamaa yashaa dabeetana siduu doono ayuu dib ugu dhisi karaa waxaasoo dhan macnaheedu waa maxay ma waxbarashadaynu diidanay baa maya maya horumarka iyo nololeed ama adduunka horumarkiisa iyo aakhiro horumarkeedu labaduba waxbarasho ku xidhan yihin diintu saasay sheegaysa haddaad rabto adduunka inaad horumarto iyo haddaad rabto aakhiro inaad horumartaba labaduba waxay ku xidhan tahay maxay waxbarashay ku xidhan tahay si awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi aadam markii loo soo diraya adduunka kan wacallama aadama alasmaa'a kullaha waxbaa la soo baray isagoo aqoon le buu yimi saas baa diintan islaamiga ah wixii ugu horreeyee soo dega iyadoo meesha ay ku soo degtay ahayd meel saxaaro ah waan aqooni ka jirin oo thaqaafa ka jirin oo waxba ka jirin oo dad aqoon tixgeliya dadka ugu fog ah ayaa haddana qur-aanka wixii u soo hordegay wuxuu ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam wax cilmiga iyo qalinka iyo waxaa ka warramaya bale suuraddii saddexaad ama afraad xataa qur-aankay soo degta haddana nuun walqalam wamaa yasturuun bay yacni iyadoo laga yaabo carabi waxay u baahnayd inay ugu badnaan lahayd waxyaabo kale ayaa qur-aankii ugu soo hordegay wuxuu ka warramayaa maxay qadiyat lcilm waayo bulsho ma aasaasanto haddaan cilmi jirin ilaahayna nebigiisii moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu gallad iyo manno sheeganayaa inuu waxbaray waanzala calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam
وكان فضل الله عليك عظيما بإله إليه وحلقوا سودتشي كتابك يا حكمة سنة وحان الله قبري وحانت قرنين بإله يري كاسنة وإلهي ديرات كيسا وين بإله إليه وقال لك سيه يعني إلهي وحو النبي كيسا وقلت شيختين محي إن وحلا بري نبينا مركو إلهي بري يدعو عدا قرآن وقلتها الله وحكم ده وقل ربي زدني علما إله وقوني كردي بل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ده مركو تكاد الصبح وحيابه اللازم يشري الصبح كستوى أخري يشري وحكم ده اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إله وحكو ويدي سنة يا علمي واحتره عمل أضغبشه يا رزاق حلال وطيبة صبح كست صلاة الصبح مركو كبحه ودعوينك آخري شري إلهي وحكم قال شري لكن اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع أقون أن وحتر لحين هدبا أقون تقلبيت كتالله ودنادن تالله أركتida qofka muslimka marka lagu eego waxay isugu jirtaa waa waxtar adduun oo qabashna wata dakhalna wata markaan waxbarashada ka waramayno waxay dhahdaan aqoon-yahanadu waxbarashada dunida taalloo dhan saddex qaybood unbaa loo qaybiyaa waxbarashada dunida taalloo dhan waxaan waxbarashada xoog ugaga waramaya waxa weeyaan dee ilmahan intaynu iskuul geyno ayna wax daba ku darsanin saawgeed waxaan rabaa inaan tilmaamo waxbarashadu khatarteeda iyo waxa loo dhigaa wuxuu yahay iyo natiijada productka ay soo saartay saynu arki karno culumta bay yidhaahdeen dunida taalla waa saddex qaybood qayb waa la kala qarsadaa laysmana siiyo sinaba laysuguma ogolaado basaasnimada dunida ugu weyna iyaday ka dhacdaa qaybna waa la isku qasbaa sankaa la iska geliyaa waa la isa siiyaa waa la maalgeliyaa qofka baranaya qaybna waa la kala gataa bay yidhaahdaan waxbarashada dunida taallaa bay yidhahdaan waa saddexdaa qaybood qaybta koowaad ee aan sinaba la isu siin waxay yidhahdaan waa culuum siyaada waa culumta keenta wadan inuu dhaqaalaha dunida ama hogaamiyo ama xoogga dunida hogaamiyo ama waxaan hogaamiyo waa culumta ku saabsan bay leedahay maalan nuclear weapon iyo wixii ku saabsan laysuma ogola ciddii xariiqdeeda xaggeeda soo egtana haddii la tumi karo waa in la tumaa waa culumta ku saabsan cilmi alfadaa cirka iyo waxaan loo diray iyo wixii ku saabsiisan waa culumta ku saabsan hubka oo dhan iyo teknolojiyada ku saabsan waa culumta ku saabsan core ideaha ay leeyihiin shirikaadkan waaweyn ee dunida ka jira shirkadina ma bixiso core idea مثلا كوكا كولا بقول يا دور سنادود بهذا السكرتيي وإلين مركز الدنيا لبا قف قودا حتى waxa meeshka jiro dhan meel bay ku qarsoontay bank bay taala laba engineer qura loo sheega waxa saala isugu qaldo that's all cid kale ogi ma jirto baqol iyo dhowr sanadood bay hadda maraysaa idan aqoomaha dhaqaalaha abuura xooga abuura taliska abuura waxa abuura la isma siiyo waxay yidhaahdaan dunida marka la eego basaasnimada ugu badanina waa meesha ay ka jirto waxa ugu badan ee la isbasaasaa waa in aqoon la xado weliba bay leeyihin waa meelaha inta isku jaalka ay xataa isbasaasaan ay isxadaan sanada qaar bay waxay leeyihiin westernka basaasnimadii ugu badnaa isku sameeyey waxaanay ku saabsiisan tahay maxay core ideas la kala xadayo oo waxa ku saabsan aqoonta ayada la isma siiyo ninkii agteeda soo marana waa laga durkiyaa waana ta dunida loogu taliyo dhaqaalaha dunidana lagu hayo taas waa qayb kale waxay yidhaahdaan cid waliba way faafisaa dowladdu waliba waxay isku daydaa safaaradaha ay dunida ku leedahay inay qayb ka mida safaaradeeda ka dhigto qaybtaa wax faafisa waa aqoonta ku saabsan bay yidhaahdaan identityga waddanku leeyahay hadday diintay hadday culture tay hadday values tay hadday taariikh tahay hadday af tahay safaaradaha dunida safaarad kastoo aad timaado safaaraddu waxay leedahay qayb culture-ka ah
safaaraddu waxay leedahay maxay maktabi thaqaafi maktabi thaqaafi muxuu sameeyaa wuxuu hirgelinayaa taariikhdii waddankan inuu dadka baro waxay rumaysan yihiin valueskooda inuu baro afkooda inuu baro ummad waliba waxay jeceshay afkeedu inuu faafo oo uu dunida gaadho qaybtaasi bay yidhaahdaan waddan waliba deeqsi buu ku yihi dunida inta kale diintiisa iyo dhaqankiisa iyo afkiisa iyo valueskiisa imka western oo dhan baad maqlaysaa waxay leeyihiin xuquuqul bini aadamku ku xidhan yahay donorsku waxay bixinayaan xuquuqda la sheegaya waa maxay waa afkaartay reer galbeedku rumaysan yihiin ama l b g t dheh ama kandhe ama waxandhe ama waxandhe waxoodaasay ku xidhan yahay deeqaha la bixinayo waxa la samaynayo politicska booska la iska taagayo idan waa valueskoodii bay faafinayaan waa xun yihiin waa san iyo kaas iska dambayso waa valueskoodii bay faafinayaan waddan waliba wuxuu tijaabinaya afkiisa siduu u noqon lahaa maxay af international oo dunida laga yaqaano waddan waliba wuxuu raadcaynayaa taariikhtiisa sidii loo baran lahaa ay u noqon lahayd kaana shakaa la iska geliyaa waddan waliba inuu maalgeliyo waana meesha ugu badan ee wasaaradda waxbarashadu qabato higher education marka laga yimaado wasaaraddan waxbarashadu waxa ugu weyn ay qabataa waxa weeyaan cultureka iyo valueska iyo afka iyo dhaqanka iyo diinta iyo aragtida ay dadku leeyihiin inay ilaaliso oo dadka la baro qaybna bay yidhaahdeen cilmiga ka midi waa qaybta bini aadamku wadaago oo waa la kala gataa una iyada lacagtaada dhakhtarnimada iyo injineernimada iyo waxyaabaha kanaynu sheegno idaarada iyo handasada iyo waxaa la kala barto oo dhan jaamacadkaad fiigaaga haddaad la baxdo waa maxay waa kuu bannaantay therefore iyada waa la kala gataa un professorkana waad gadan kartaa jaamacaddana ardaygaaga waad keeni kartaa waa suuqa dhaqaale ee furan ee obinka idan waxay dhahaan tacliinta dunidu waa saddexdaa qaybood waa qayb aan laysu ogolayn ee secrets oo cid waliba inay ilaashato rabto qayb shanka la iska gelinayo cid waliba inay faafiso ay rabto iyo qayb mushtarak bini aadamku uu yahay oo cid waliba ay gadayso haddaba inagu markaynu halkan nimi inagaan waxba sidane maran baynu nimi waxaanaynu nimi system waddan leeyahay oo degan oo ka fakeraya culturekiisa dhaqankiisa afkiisa aragtidiisa valueskiisa siduu wax u arkaya ka fakeraya oo u dhigtay wasaarad dhan oo balaayiin min dollaaraad ku baxdo waxaynu rabnaa inaynu ku dhex noolaano waxaynu leenahay markaa waxaynu rabnaa ubadkeennu inaanu identitygiisa luminin inaanu afkiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa lumin maxaynu markaa inagu samaynay aynu bixina waxaynu samaynay malcaamad iyo masaajid malcaamadda maxaynu ku dhignaa inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa that's all inta ugu badan imika baraarug yari soo bilbilaabmaya wax kale lagu dara laakiin inta ugu badan qur-aankaa lagu xifdiyaa waxaa meeshan yaalla markaa wasaaradda waxbarashada iskuuladeeda waxaa jooga dad trained ah dad loo tababaray qofka bini aadamka ah inay wax u dhigaan oo ka dhaadhiciyaan malcaamadeen iyo masaajideedana waxaa jooga nin ama daacad oo raba inuu dadka wax u dhigo laakiin aan la tababarin macluumadii wuu hayaa aqoontii wuu garanayaa laakiin sida ilmahan yare da-dan joogiyo kan da-dan joogiyo saa loola dhaqmee loo traingareeya lama barin tababar ma qabo ama maahee wani shaqo waayeyba oo suuqa shaqada hadduu kasoo helana war malcaamadii cid u dirta anigu shaqaan helay buu leeyahy iska tegayaa hadduu hore shaqo u waayo dadkan afgaran waaye meelaha kanna malcaamaddu joogaya iyo alif dhedaasu wadaya iyo faatixada akhriyo ka idan laba system baa markaa rabnaa inay beratamaan system nin voluntary uu dhigayo ama nin dani baday uu dhigayo oo aan trained ahayn curriculum trained la tadwiiriyeyna aan wadanin oo aynu rabno inuu afkeeni iyo dhaqankeeni iyo diinteeni dhigo iyo system qof tababarani uu dhigayo khubaro loogu talagalay inay manaahijtooda soo dejiyeen oo loogu talagalay dadkan in la isku milo oo hal mida laga dhigo dhallinyaradeena markaa laba qaybood bay u qaybsamaan qolo systemkaa iskala qabsata oo hore u socda iyo qolo wadiba kari weyda
qolada wadi kari weyda guri foqoyra buu ka yimi dhibayna haysata wax badan uma qaban karno ubadka inanka yare isku classka yihiin waa brand name wuxuu xidhan yoo dhami kabuhu waa brand name kabaa daa nigsaanta brand name kolba nigiska yara hoose kalsumada la xidhanayo surwaalkan waxa dabada looga ridaa inaad muujiso brand name inuu yahay nigiskaad xidhantay inaad mid yaroo calala xidhnayn dadkani markaa magac bay wada raadacaynayaan oo sitaan inana haddii shaadhi surwaal ba loo xidhay meeshuu tegey inantiina xijaab yar baynu ku duuduubna meeshaynu geynay waa la yasayaa waa la dacaydaynayaa waa la maagayaa kii adkaysan kari waaya mid baa afka usoo dhuubaya wuxuu odhanaya war ma rabtaa labadan kabood qurux badan inta baashan yar baa la qaadayo halka yar baa laga iibiyaa baashan yar qaad 1000 pound berawik baad helaysaa baniinkani ma caba waxa kan laakiin labadaa kabood inagaa buu u baahan yahay maalinta hore u qaada kunbaa buu soo helaa laba kabood oo cusub buu iibsadaa iyo koodh yar oo cusub iyo systemkii iskuulka nin la socon karaya buu noqdaa wixii la watay laakiin dee baasha haddaad bilowda lacagta waa macaantahay marka hore lacag soo hel yaroo quick money baa u geysay laakiin circle-ka mar hadduu galo oo lacagtu dhadhanto waxbarashadan iyo waxani way baxaysaa wuxuu noqdaa markaa akhiiran qof iskuulka ka dhacay oo ama drug dealer caadiya noqday ama gang noqday ama jeel ku dambeeyey ama dawaqayba oo musaxaadka caqliga la geeyey meelaha waalida la geeyey kii kale systemka la qabsaday maxaa ka hor yimaada kii si uun isu manage gareeyay adkaystay inan ku yahayba systemka ku jiray 13 year grade-kii ka baxay jaamacadu xidhxidhay kaasna laba wax buu la kulmaya kow shahwaad tiro badan buu la kulmaya hablo yaryaroo isku xoqa inama yaryar hablo yaroo la isku sii daayay meel open society ayuu tegaya dad multicultural ah open society wixii adigu aad lahayd waa xumanaan xumo u aqoonin ay ka mid tahay nolosha caadiga wuu qadeeyay iyo inan buu la kulmay it's the same had wax cunto iyana gabadh israacdaan no difference markuu inanku jaamacadda joogo culture-ka meesha yaalla wax u dhexeeya ma jiraan waa laba wax oo nolosha caadiga la sameeyo ka mid ah idan shahwaatu nafs tiro badan ayuu la kulmayaa waa dhanka kalena shubahaad badan buu la kulmayaa oo takasii khatarsana wax diintiisa ka shaki geliya hadduu qofkan waxba umaad soo sheegin malacamadiina faatixada la soo qaybsiiya ama 10 jis buu hayaabaa la yidhi laakiin wax kaloo uga dambeeya ma jiraan dabeetana su-aalo tiro badan oo jaamacaadku sideedaba waa meesha qura ay taallo afkaarta waddanka taalloo dhami professorada joogaa waa kala wada mabaadi ardada joogaa waa kala wada mabaadi markaad jaamacadda joogto waa goob dagaal oo afkaarta lagu dirirsan yahay left iyo bidix iyo midig iyo mid fog iyo mid dhow iyo mid liberalism iyo mid environmentalist iyo mid kale wuxuu dhama waa jooga wax bini aadam la sheego una aragti la sheego meesha ay ku urursantahay la isugu wada keenaa waa jaamacadda markaa waxaa jooga professor khubaro waxaa rumaysan iyo arday waxaa la kala safan iyo mid yaroo muslimo intaad ku soo dhex turtay maran aan waxba isaga ku jirin waa maran yihiin iskuulka waa laga yaabaa inuu top yahay A plus ama A grade ama B plus inuu yahay arday muuqda markay waxbarashada materialka tahay waa suurtagal laakiin waa maran yahay xagga kale kana waxa ku dhacintooda badan inuu jabo oo laba midun inuu ku dhaco dee haddaynu dhis over 70% baa diin la-aan ma ilaah ma jiro oo aan rumaysanayn inuu groupkaa galo haddii aanu gelin kuwaana inuu galo kuwa ah sidii aan ilaah jirin u nolow qaarna waxay rumaysan yihiin inaanu jirin qaarna waxay rumaysan yihiin sidii aanu jirin u nolow that means nolosha isku cidhiidhiyin feel free xorriyad dareen sidii aanu jirin u nolow kaasina waxaa laga yaabaa xagga waxbarashada ama xagga shaqada ama xagga dhaqaalaha inuu guulaysto
laakiin waxaad adigu wadatoo dhan wuu ka baxay. soomaalina maaha, waa kafaanaya, dhaqan soomaaliyeedna ma haysto, inaanu muslim ahaynbana waa suurtagal. soomaaliya wax loo diraya yoonkood wuxuu soo diriyay reer hebel baa halkan jooga iyo waxaana kulama rumaysnaa. idan waa nin faranjiyo ka mid ah dadka waddanka jooga, waa nin ka mid ah dadka waddanka jooga. mushkiladeenna waa taa. maxaa xala haddaba? mushkiladeenna waa taa, waana waaqacaan la noollay. ilmahan yarina garar buu leeyahay, waayo dee intaynu badweyn dhigna baynu waxaynu idhi dabaalo nin ragaa tahay, amba waxaan ka soo baxay intaasoo dagaal iyo intaasoo waddan baan ka soo booday iyo intaasaan soo maraya. nin baa alla kaa dhigay, adigaabaa waxaad cuntiyo meel aad u hoyataba helaye ka dabaalo dunida baynu nidhi. marka waxaynu u aragnaa inagu inaynu kadeed soo maraye isagu nimca ku kor inuu yahay inuu laakiin isagaa kaa dhib badan. adigu marnaba dhib caqliyeed maad la kulmin, dhib diineed lamaad kulmin, dhib shahwadeed lamaad kulmin. dadaad af iyo dhaqan iyo diin iyo akhlaaq iyo values iyo wax walba la wadaagtaad la soo kulanta. waxa ugu badanaa waa isdisheen oo kala cararteen. waxa ugu badanaa adigu aad la kulantay intaas ahayd. laakiin ninkan intaad balaayo madaxa u gelisaad waxaad leedahay waa inaad survive-taa. ninka raggii wuu ka baxaa dhibta raggaa loo sameeyey. maxaa xala? xalku waa wax cad oo la garanayo, laakiin inagu ma yeelaynaan weeyaan. xalku waa wax cad ee inagu ma samaynaynaa. kow, qofka bini aadamkaa shubahaad baa ka hor imanaya, ama waxaan leenahay challenge fikriya oo caqadiya oo diimeed iyo mabaadi'eed baa ka hor imanaya. wuxuu u baahnaa qofka kani inaynu tallaallo. tallaalka soo ma taqaaniin? tallaalku waa waxaad mustaqbalka ugu sii tala gashay. waa qof environment uu ka jiro xanuuno aad rabto inuu ku noolaan karo safena uu ka ahaado. bini aadamku bergii hore uu reer baadiye ahaa iyo beeraleyda ahaa iyo kala fogaa, xanuunada isma qaadsiin jirin. xanuunaduna wax yar bay ahayn, manay faafi jirin. metropolianka markan la noqday 20 milyan iyo 30 milyan magaalo qura loo wada degay ee wax walba la isku darsadaa, xanuun oo dhami yimi. waxaan oo dhami waa industrial systemkii wixii ka ratibmay, xanuuno cusub iyo kuwii hore faafistood iyo baliya baaskar oo dhame. laakiin dadkii waxaan samaystay waxay u fakereen inay waxaa ka hortagaan oo ah warintaynan maranin. yurub xanuunaa ka dhacay, wadanada qaarkood 3 meelood marka laga dhigo meel baabi'iyey waqtiyadii ay waxaan bilaabmayeen. wadan dhan oo 1/3 hadduu 30 milyan aha 10 milyan mar qura wada dhibatay. waa black days kay sheegi jireen. laakiin way fakereen, waxay u fakereen war dadkii waa kan magaalo isugu yimo, waa tan dhibti sii badanayso, dadkii wuu isdhexgelayaaye. how they can survive, siday u noolaan karaan. therefore waa la maalgeliyey, baadhitaana la sameeyey, kan baa la sameeyey. waxaa la gaadhay in la helo aqoona in dadka la tallaalo. tallaalku waa xanuunkiioo nasakhanintiisa badani baa lagugu mudayaa, oo qofka bini aadamka ilaahay jirkiisa wuxuu siiyey difaac heegan ku jira. difaacagaas baa waxaa la barayaa xanuunka noociisa, dabeetana weerarkuu bilaabaya sida loo dilaabo markiiba baranaya. markuu barto wuu record garaynaya. yani khalaaya lamfaawiya, white blood cellskaagu waxay leeyihiin T cellsku qaybo sida dabaabadaha iyo kaarayaasha iyo ciidamada u dagaalama, qaybo gantaala rida, qaybo wax basaasa, qaybo qoraal la sameeya. waxaasoo dhan ilaahay wuxuu ku kaydiyey dhiigaaga cad. white blood cellskaaga waxaasoo dhan leh. xanuunku markuu jidhka soo galo, qolaa basaasto waxay sheegtaa wax dheeraadii inuu jidhka soo galay. waxaa loo dalbadaa ciidamada madaafiicda qaybo ka mid oo ku garaaca la yidhahdaa. haddii madfacaasi dilo rikoodhkaa lagu qoraa. markastoo xanuunkaasi yimaado madfac hebel buu u baahan yahay ku dhufo. hadduu madfacaasi dili waayo, T cellska qaybaha kale T8 T4 baa loo dalbadaa oo ah ciidamada kaarayaasha iyo kuwa. dabeetana dagaal baa ka dhaca. dagaalkaa waxa sababma, waxa ka dhasha malaxdan iyo dheecaamada tan iyo waxa kani bay yidhahdeen waa shuhaadadii meesha ku dhimatay. labadii kooxood ee isgalay wixii meesha kaga dhintay
waa waxa kan xumadan iyo waxaan kaa karayaa bay leeyihin waa dagaalkaasi wixii ka soo baxay idan jidhkaaga ilaahay baa diyaariyey waxaa lagu talagalay markaa diyaarintaada in la baro xanuunada qaar si marka yimaadaanba uga takhallusi karo talaalku waa intaa uun markaa waa in saa lagu mudo dabeetana xanuunada markastoo jidhkaagu dareemo instantaneous inuu uga bixi karo waxaan leenahay qofku intuu yaryahay wuxuu u baahan yahay difaaciisa jidheed in la dhiso sidaa difaaca jidh aynu u dhisayna dhakhtarka lagula ordayna usoo tallaalayno inaynu difaaciisa caqliyeed iyo caqiideed inaynu dhisno inaynu barro ilaahay iyo jiritaankiisa inaynu barro nebi maxamed iyo nebinimadiisa inaynu barro kitaabka qur-aanka iyo saxiixnimadiisa inuu xagga alle ka yimi inaynu barro tawxiidka iyo aakhiro iyo inay jirto inaynu barro maalin la xisaabtamo inay waxaasoo dhamme adilo caqliya naqliba waa leeyihiin adilo philosophy adilo caqliya adilo maangala oo qofku hadduu si fiican u barto aanu hadhow jabaynin uu noqonayo qof tallaalan laakiin haddaad qulala xafidsiiso dee ku badbaadi maayo ayuu badanta ilaahay oo si kale unu badbaadiye mooyaane qur-aan korka laga qaybay bale inagana waa soo wadnaa waa qaybsiinaa 2 sano markuu ka maqan yahayna midh kama yaqaano mise xufaadaa la soo saaray bal suuqa galoo weydii kuwa daroogada iibiyo jeelash ka buuxa in badanoo ka mid qur-aanka way hayn jirtay imikana xabad ka garan maayaan idan systemkaynu wuxuu wadnaa inaanu productive ahayn waxaynu ka garanaynaa productkeena systemka markaynu wadnay wixii ka soo baxay muxuu noqday wixii ka soo baxay wuxuu noqday inaan faranjiyoobay iyo inaan daroogada cabay ama jeelka galay ama dadka boobay ama tuugu noqday ama gaanga noqday labadaa inan baa inoo soo baxay way yartay inaan Soomaaliyeed oo multazama ma odhanayna ma soo bixin laakiin marka number wise loo eego imisay ka yihiin inta aynu soo saarnay inaan Soomaaliyeed oo af Soomaaliyeedna garanaya diintiisana garanaya waddankana ku noolaan karo aqoon loo shaqaysan karo xoogsan kara inaan iyo inanba intaynu soo saarnay waa intaynu sellos garaynay si kastaba aanu los garaynay waa intay isku yihiin waxa ay sheegaysaa schooling systemkeena iyo waxbarashadeena iyo masaajidkeena iyo malcaamaddeena iyo systemkeena iyo waalidkeenu inuu guulaystay iyo inaanu guulaysan bay sheegaysaa waxay sheegaysaa waddadaasi productska inoo soo wadaa noocay yihiin bay sheegaysaa sida awgeed waxaynu u baahannahay ilmahan inaynu difaaciisa dhisno oo caqiidadiisa dhisno oo uu noqdo mid isdifaaci kara walidaalika baa ambiyada qur-aanka markaad eegto waxaa rasuul la soo diray qur-aanka markaad eegto waxay ka bilaabaan qadiyatu tawxiid dadkan marka hore la rabaa in la tallaalo waxaa la rabaa mabaadir rigid ah qofku hadduu qabsado aanu xaqa markuu arko aanu waxa kaloo dhanba hadduu la arkayo aanu weecweecanayn inuu helo si awgeed baa ambiyadoo dhammi ucbudullaha maa lakum min ilaahin hayru ka bilaabaan tawxiidkaasaa lagu sugaa qur-aanka inta ugu badan leh aakhiro iyo ilaahay buu ka warramaya aakhiro iyo ilaahay labadaas oo ah labada rukun ee tawxiidka ugu waaweyn ayuu inta ugu badanna ka warramaya marka waxaynu leenahay haddaynu rabno inaynu dadkan badbaadin karno waa inaynu schooling systemkeenna ama school dhammaystiran ha noqdo ama weekend school ha noqdo ama after school ha noqdo suu doonaya ha noqdo laakiin system qofkan caqaa'idiisa iyo diintiisa bari kara waa inaynu keennaa system ilmahan tallaali kara waa inaynu keennaa ka labaad ilmahani wuxuu la kulmayaa taxaddi akhlaaqiya oo meeshan uu tagay waa meesha rag iyo dumarba la isku dhex jiro adigu lamaad kulmin waxa aad si leedahay gaal baad la nooshay iyo gabadh qaawan baad leedahay waxba maad arag waayo aduu 10 qof oo shaqada ah unbaa is aragtaan inta ka dambaysana maqaaxida Soomaalida iyo masaajidka joogta cid kale ay is aragteen ma jirto laakiin kan bedweyn buu ku jiraa laakiin waxaan leenahay haddii caqiidadu ay dhisanto salaadii bay gaadhimaya haddii ay caqiidadu dhisanto oo qofku valueskiisa uu dhismo iyo waxa uu qiimeynaya oo uu dhismo qofku wuxuu sax u yaqaan iyo wuxuu qaladka u yaqaana markaasay ku filantay ilaahay ka cabso iyo waanada iyo aba dhowrsanood marka hore maaha waa markay kuwani dhismeen
ayaa waxaa anfacaysa ittaqi illaah inaad ku tidhaahdo war ilaahay ka cabso waayo dareenkan iyo aakhire iyo ilaahay jiritaankiisi wax uu kula rumaysan yahay marka ittaqi illaah markaasay wax taraysaa si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayay 7 aakhiro عرش الرحمن كهرسدا وحا كمدا شاب نشأ في عبادة الله وين لغو برباريي إلهي عبادة لا ترينجريي والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن ربك لا يعجب لشاب الله صبوة له إلهي والله يا باننا اللي يراه وآن وعد لهين ومن ساسا وقيت بها إلهي القرآن كوحنا وقلت المامية ويل اللي يراه وreerkoodii ka tagay laga kaxeeyay oo la iibsaday oo adoon laga dhigtay oo guri boqortooyo jooga oo boqoradii hunguraysay boqorku tuu qabay hunguraysay oo diidan way isku dayday inay xoog ku kafsato waqallaqat al-abwaab wa qalat hayta lak wax walba intay wagaajisay tiri soo dhawow oo ku yiri macaad allah ilaahay baan ka magan galay oo markuu diiday أستري كفصو أو عراري أو أردكي البابك وكلا كل ما ينكدي أو ساكا بحصدي وهدنا خدت كلا دكتي وإلى إلا إن لم يفعل ما آمره وحا أنكرب هدو السمين وايو لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين والله حد دونا كود دلوبو كم من نقون دونا وإلهي بريا يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إله وأنا أكتئد حبسي قال لك كالقعيل بدني وحي ويريان يعني معتقد كيس هارسنا إلهي حبسي دي ساكو بالريد ساد رادد بو حبسي كدورنا يينو زينيستو ومنزل السريسة إلهي قرآن كمركز كله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هذا ورسنادان دلن يراد وحيان هلينيني وحي كوغور سنادان وحي كوغور سدان waxay leeyahay qofku markuu aqeedadu dhisanto ee akhlaaqiyadka lagu treengareeyo markaas uu dhismaya qof jira noqonaya qof jira markuu noqdo wixiisu ku faanaya marka waa mu'tazun bidiini hadda waxa laga yaabaa xataa hadduu salaada tukanaya ama caynka samaynayo isagoo la khajilsan inuu tukado ama qarsanaya su'aalaha yuruna la weydiiyo waxa kamid ah sheekh masqusha ma lagu tukan karaa oo maxaa salaad iyo masquul isku keenay يعني وان دين دي سلا قرصنا يو خجل سنه اسلام ميلاد كلو مطان عدك كو ارق markaad foorarsanayso wax bini aadam isaan ku arag meel gaar ah oo aan dadku arag yani waa mu'taz baanu ahayn diinta saanu kalsoonidii nafahan buu u jabay yani badan dadku waxay maqlaan oo ka sheekeynaya nukadka gaandi laga sheego waa nukta ma aha hatta qoraal iyadoo amaan arag waa nukta la sheegay waxay dhaadaan mahatma gandhi ninkii la oran jiray nin qaanuuyahan oo filosofa oo falsafada pacifismka la yiraahdo dunida ku faafiyay in nabad wax lagu raadsado oo la dagaalamin oo indiya xorriyadeeda uu soo dagaalamay buu ahaa soo halgamay marka wuxuu rumaysnaa diintiisii buu haystay hinduusamkiisii iyo wixiisii hinduusku waxay qaataan laba goob cadcad mid xagga sare laga hoodo iyo mid inta halkan la duuduubo dabada la geliyo xagga dambe la geliyo marka nin western kana bay kulmeen ul yar iyo labadaas uu qaadan jiray waana feedha qaawara aqoon ahaan waa nin lawyer oo la garanayo macruuf ah bulshada hogaamiya laakiin culture-kiisu ilaashanayay min ingiriis baa wuxuu ku yidhi bay yidhaahdeen oo tay xidhan ayaa ku yidhi what's this maradan yare dabageliska waa dabada ugu jirta yidhi waxaa dabada gashatay waa maxay kama waalinaysna su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi what's this baalka yaraayo halkan ku xidhnaa taygii this is necktie buu yidhi kani waa qoor ku xidh and this is back tie buu isna yidhi يعني مرة ننا قارتو صدق ننا دبادو صدق وأنا مرة يعني وحوينو ليس محا أنا كم مرة ده إذا كده ويان وحلا يسويدية هذا أنا كده وحلا أقبله أتبى مرة أنت قارتو كحد إلا لا تصدق أنا متبان دبادك الشدي مركا محا أنا كم مرة ده إذا سؤال قال يعني إنك أنا وحو كفانا يا ومعتز كالجر كيسة رقم كيسة كفانا يا دون ما هاد رقم ما وحكو كلا سرية مشاكل كينا هيستوى حكم ده wixii laynagaga hormaray maynan raadcayne waxaan lagu hormarin baynu raadcaynaynaa firsarega dunida aqoon bay ku hormartay science iyo
waxbarasho kamaynan raadcayne wax kaleynu raadcaynayna dunidu ma dhafo xiirxiir iyo isqaawin iyo marada la daldalooliye iyo khabre lacaba miyaa lagu horumaray wadan bini aadam oo ku horumaray miyaa naqmaasheen this is a culture of a people ama ha wanaagsanaado ama xumaado waa dhaqan dad samaystay oo leeyahay laakiin maaha aqoon maaha wax la isugu faano waxay ahayd inaynu waxeenna ku faano maradeenna inaynu ku faano dhaqankeenna inaynu ku faano dadnimadeenna inaynu ku faano idan waxaan leenahay qofku markuu caqiidada iyo dhaqanka helo iyo akhlaaqiyadka iyo valueska markuu aaminoba waxay keensanaysaa inuu wixiisa ku faani karo shayga saddexaad waa soo koobaya shayga saddexaad aan ku gabagabaynaya waxa weeyaan mushkilat alfaqr mushkilad wax la-aanaa jirta waynu nimi qaxoontaynu nay dad madoobaynu nay shaqadaynu hellaa waa shaqooyinka dadka ugu hooseeya caruur badanna waa dhallay idan dhaqaalaheenu wuu hooseynaya standard of lifekeenu wuu hooseynaya waayo familigeenu wuu ka badan yahay familiga kale dhaqaalahayna soo galaana waa ka yaryihiin maxay dhaqaalaha kale raadeen wuu sameynaya laakiin waxaynu u baahan nahay inaynu dadkeenna barro callimhu kayfa yastaad bay yidhaahdaan miskiinka wuxuun lama siiye siduu u ugaadhsadaabaa la baraa innagu aragti baynu kala nimin wadanadeeni odhanaysa qofku ama ilaa jaamacad ha socdo ama aqoon la-aan ha iska ahaado dunidanna shaqada ugu badan ee bini aadamku qabta waa xirfad dadkuna wada IQ-goodu ma wada sarreeyo ma wada hadda jaamacad ka wada bixi karaa jaamacadda dadka wada baxayna shaqo ma wada heli karaan waxaa muhimka ah inaynu baranno xirfadaha waddanka yaalla oo dadku ilmahaga haddaad arkaysa inuu C grade ama D grade ama wax ku dhadhow joogo maxaad jaamacad kaga lugoynaysaa ma inuu kasii dhaca umaad rabtaa oo dabeetana darogada iibiyo waxaa ka roon inaad xirfad u wareejiso inuu computer barto inuu qasabada barto inuu gawaadhida saa loo sameeyo barto inuu electronics xirfad uu ku xoogsan karo callimhu kayfa yastaad waa inaanu barraa qofkan siduu wax u noqon karo innaga waxeennu ma waxa weeyaan ama jaamici noqo ama suuq joog noqo xamaal noqo xirfadda qura aynu garanaynaa waxa weeyaan soomaalidu dee laba xirfadood bay dunida la wareegtaa mid waa darawalnimo dunida meel kasta aad joogto soomaaligu xirfadda koowaad u yaqaano waa darawalnimo taxi kaxee bas kaxee kan kaxee waa darawalnimo xirfadda labaad aynu naqaaneyna waxay ahayd trade waxiibintu iyadu yurub kama socoto oo shirikaad waaweyn baa cunno haysta dhar haysta waxba ma iibin karno waxiibinteenna yurub waxay kusoo aroortay maqaaxi yar iyo meel yaroo madow ama dukaan yaroo dirac dumar iibiyo inagunba wax iska iibinaa iyaga waxba kama iibino kontonkeeni soo qaxaynba wax kala iibsanaa idan xirfadda qura inugu soo hadhay waa maxay waa driving marka dadkeenna oo dhan ma tagsiyalaynuu tababaraa iyo xamaal maya waa inaynu tijaabinaa oodkeenna intuu odhan lahaa aabahina darawalbu ahaana darawal baa noqday inaynu farsamo darawalnimada ka fiican barro maxay callimhu kayfa yastaata waa xirafkan waddanka yaalla ee farsameed haddii aynu jaamacad ilmaa ka bixin kari weyno ama awoodi kari weyno ama ribanimadeeda diidnay ama kan diidnay duruqyo badan oo kaloo loo wareega baa jira inaynu barro siday wax u baran lahaayeen isla markaana waxay keensanaysaayoo labaadna hadduu diin iyo caqiide iyo dhaqan fiican helo wuxuu baranayaa in la xishoodo oo aan wax la xadin oo aan xashishad la iibin oo aan suuqa xun la gelin ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dad muslimiin oo foqoro ah yaxsabuhum aljaahilu aghniyaaa min atacafuf baa ilaahay yidhi dadka aan xaalkooda ka warhayni dad waxhaystay moodayeen dhowrsanidooda daraaddeed hadduu ilmaheennu intaynu wada korin kari weynay wax wada bari kari weynay dhowrsanidaan barro youtube noqonin bulshada kusoo kordha ama darogista bulshada kusoo kordha ama kan kusoo kordha yuu noqonin ama waa inaynu barraa sidii uu u ugaadhsan kari lahaa isla markaana waa inaynu barraa inuu noqdo qof dhowrsanaan kara sala allahu calaa maxamed wala ali w saxbi